iyo cayn waxaanu salaamaynaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan baanu salaamaynaa waa mid labaad waxaan gaar ahaan u salaamayaa dawladda Soomaaliya ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyda caafimaadka qabtay Ilaahay uu noo soo diray qorax duhur joogta weeye qorax duhur joogtana sacab laguma qarin karo ما شاء الله ما ندلي بقول كيبا بقول بانو إذا سلامينا آد بانو إذا تاجرسنا هاي مسكحة إيا قلبك إيا ميل والبانو إذا كتاجرسنا هاي إذا كأو أنا سوقارين أو واحتركين إيو هذا الكين أو إماتكين يلا شركين منا أوسنا سوقارين بانو برتا إذا كتاجرسنا هاي أو إذا كره لقلينيا هذا نمان كمامول قبل يددو وحيهين بيجرن واين وقبر مطوريال نوال بصدق قبل بمسؤول كيه ما قرت صدق قبل هي الله قلت لك إنه مسؤول كهذا أو ما تقعنا أو أرميه هذا جودها وضع أرم جبادنا الشغبكم عليه دولة الصومالية هي أحل سارن ذلك الصومالية أو ما تقعنا إن ملك استب إن يدقصوا صارته أو ملك استمرح كهذا الله قلت لك وحالله الصومالية هالنولات الصومالية هالنولات الصومالية هالنولات الصومالية هاي سراعضو الصومالية هاي سراعضو الصومالية هم دودو مدح وين أقول يسوع مدح وين أقول يسوع إن كير الصومالية وصاب بحياة ولا شو أقول يسوع إلهي وحنا كعبرنا تقول يسوع إلهي وحنا كعبرنا عدو كقبل إلهي وحنا كبرنا كوا كدونا يعني أكتر هوست هذا جلان نينك اللي يرهد أحمد مذوب يدشية دني نينك يرهد أنا قد دمية وبحية دمية وحنا لا هاي دمية وحنا لا هاي دولة بالغود دور تيوادنا دميسة دلكاجي ما دميو بدأ وادي قدونا يا ما دميو بدأ وادي قعنا يا ما دميو عرب وادي قوتك يا ما دميو ما ذا يبدلان دميو حاجات كوك تهاي بدلان دميو دولة اللي حاهم كوجا يا دميو alla ka reeb dalka waxaan salaamayaa oo aan gaar ahaan u salaamayaa madaxweyne nabad iyo nolol waxaan salaamayaa xasan cali khayre waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkiina ka haya iska dhaaf inta aan loo gudbin jeelasha kuwii laga soo guray inta aan loo gudbin dalka maxay ay tahay deyrka lagu xiray inta aan loo gudbin waxaanu idinka hambalyeeynaa abaartii baanayd ee aad la kulanteen ee uu ku sitay lacagta ninka la yiraahdo xasan sheekh uu boosada lacagta ku sitay ee dhex mushaaxayada marba Mareykan iyo marba meel u duulayay uu lacagta ku sitay idinkoo faramaran oo aan shilin haysan meeshii aad ka qabateen abaartii saad hogaanka ugu qabateen oo meel uga xidhan umada Soomaaliyeed ayaan idinku salaamayaa gurigiisu nabadgelyo qabeen ninka gurigiisa kugu soo hogaamiyayow deew isagaad ka aragtay adigu deew xoo maad sameyn isagaad ka aragtay Soomaaligaad ka aragtay waxaan leeyahay Allah naga ka qabto Kenya nin kasta oo cadowa oo annagana weerarsan Allah naga qabto ama Imaaraad ha noqoto ama Sacuudi ha noqoto ama ha noqoto meel kan Kenyaata ha noqoto Allah naga qabto ilaahu naga qabo maxay tahay waxaan leeyahay badda Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya iyo calooshu u shaqaysta aan wax allaale iyo wuxuu ka taliyay ayna jirin cidiba ma ogayn Soomaaliyeena sidan weerar isugu tahay ilaa Axmed Madoobaha isdoortay la tagay maxay haytay caanashubkiisa aqalka dhexdiisa ahaa ilaa la tagay cidiba ma ogayn haddaan uu xognaa ogaanay iftiin baa noo baxay waa baa noo bariyeen Axmed Madoobow war halka ogaadeen markii horeba isaga gacanta u galiyay maxay ahay tooy meesha la yiraahdo kinilka shanaad isaga gacanta u galiyay Itoobiya iyo Xabashida maantana uri Kenyaatu ku wadaa inuu dalka gacanta u galiyo wararta reer yahow Soomaali miyaadan ahayn Mawla Axmed Cabdi Munumandeeq dalka TV la sacanood